قصة كون دولار هذه لما وحال ساري عجر كان هل وحال ساري مرتي بوف كوركيسة لما قعن ساعات وحد يرجع معها كر وتاج waxaa laga yaabaa inaadan fahmin muuqaalkan kale ila daabo فليحنا قبل بودن بيسو قبل بنا نكان وحوق عندي سكو صحيح هدي تلك أو تلك marka aad daabato misna dhageysato isla markaana aad qiimeyso waxa ku soo baxaya jawaabo kala duwan joog 8 January sanadkan maxaa dhacay عقد قافية قوتي وانا كبحر وكنا قدي ها waad isweydiinaysaa waxa ay tahay lacagta iyo cidda kortaagan iyo cidda sidan u galaysa xildhibaan kan 24 saac meereysa haya number konton iyo dawladda dhexdeeda maxkamadda uma ahin saacadna uma ahin isheeg xildhibaan ismiina uma ahan waa nin daadow labadeena garbood way labada garbood qoorta laba garbood oo dhaxayso dhaxdayna ha taagnaado xuseen cali xaji dhaxdayna ha taagnaado feeraha labada feerood ma iskaaga mahaysan noqdo garabna ismiil ha ka dhigto garabna saacad ha ka dhigto waxa oo la meereysay aniga ma aqaan sanadkan 2024 horaantiisii bishii koobaad January 8 2024 waxaa deegaan lagu magacaabo lamar konton ka dhacay dhacdadan waxaa geysanayana waa maamulka deegaanka iyo shacabkiisa oo iswata dhammaan ma ahan shacabka waa qaar ka mid ah oo waliba kuwa xigtada u ah maamulka haddaba waxaan kaaga sheekeynayaa xaaladda ka taagan lamar konton iyo deegaanada kale ee hoostaga sanadkii 2000 ama sanadkan 2024 waxaa lamar konton iyo deegaanada kale ee hoostagaba waxa ay u ahayd sanad aanan u wanaagsanayn waxaa dhacday in meelo fara badan oo ka tirsan maamulka ama deegaanka ay ka dhacaan falal lid ku ah ammaanka 8 January sanadkan 2024 waxaa deegaanka ka dhacay in nabadoon lagu magacaabo Ibrahim Cali Nuurow ay soo qabtaan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka iyo kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo isku dhinac ah waxaa lagu eedeeyay nabadoonka xilligaas in uu gatay dhul ku yaala deexda sare ama deexda dambe ee gudaha deegaankaasi waxaana la sheegay in dhulkaas uu leeyahay misna uu yahay dhul qabiil laakiin marka aan sameynay baaris dheer kadib waxaan ogaanay isla markaana aan xaqiijinay in dhulkaasi uu ahaa dhul dhaxal ah oo nabadoonku uu aabihiisa ka dhaxlay haddaba maalintaas wixii ka dambeeyay ehelka uu ka soo jeeday nabadoonka waxay isku dayeen inay helaan xogo dheeraad ah oo ku saabsan sida lacagtaasi looga qaatay iyo sidoo kale waxa laga yeelay ugu dambeysay waa ay ogaadeen waxaana odayaasha dhaqanka ee deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellaha Hoose ay isku urursadeen sidii ay u difaaci lahaayeen nabadoon Ibrahim Cali Nuurow waxay isu yimaadeen Muuri iyaga oo waliba ku dhawaaqay maamulka dhana deegaanka lamar konton ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa deegaankaas ku kulmay odayaal dhaqan oo qaybo kala duwan lahaa isla markaana ka soo jeeda jufada la yiraahdo Sacad halkaas markii ay kulamada ku soo gabagaboobeen kadib waxa ay heleen jawaabo kala duwan ilaa heer xildhibaano federaalka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka ay tagaan deegaanka lamar konton si loo xaliyo xiisada ka soo cusboonaatay Muuri iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan oo lamar konton kooba uu qayb ka yahay waxaa la isla gartay in nabadoonka si hoose arintiisa loo xaliyo laakiin nabadoonka oo arintaasi ka duulaya waxa uu markaasi baaq u diray guud ahaanba beelaha uu ka soo jeedo ama jufooyinka uu ka soo jeedo isagoo oo waliba faray inay lacagtiisa u soo dhiciyaan misna hantidiisa u soo dhiciyaan taasi oo uu sheegay in laga dhacay lacagtii ani liga dhacayna qaariga ka cuneen isbaardi lacag ka qaataan kuwaas odayaal nabadoon sheegay nabadoon ma aha odayaal isbaarista tuuga ilaahi ummadda dhibaata hayna kamid yihiin nabadoon waxa la ninkii dawladda ay ku tahay dhikaar leh 8 January wixii dhacay ma ahayn wax la mahdiyay sida uu sheegay nabadoonka kulan uu ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka isaga iyo sidoo kale odayaal kale oo Sacad ka soo jeeda waxa ay ku tilmaameen in arintaas ay ahayd dhacdo cambaareen mudan sidoo kalena ay fariin u direen guud ahaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya dacwad ka dhan ah maamulka deegaanka lamar konton iyo odayaashii lacagaha si la sheegay in la siiyay ayay u gudbiyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida iyaga oo waliba si degdeg ah u dalbaday in shakhsiyaad ka soo jeeda maamulka deegaanka lamar konton si degdeg ah maxkamadda loo horkeeno maxkamadda sharaf leh waxa ka codsan inay xoolaheedii nimkaasi u soo qaadaan aabi ka dhaclay warqadeedina waa taas dhulku yeeshtay warqada dhulku yeeshtayna waa taas haddaba waxaa dhacay banaanbaxyo waxaa dhacay dagaallo waxaa dhacay dhibaatooyin kala duwan oo dadka shacabka ah loo geystay aan dib u eegno Fidda Muuse waxaa ka dhacay fadhi loogu magac daray in lagu heshiisiinayo saraakiisha ciidanka iyo guud ahaanba dableyda ku sugan lamar konton iyo Muuri laakiin ma aysan suuro gelin markay ay isku yimaadeen Fidda Muuse oo ah tuulo hoos tagta lamar konton waxaa halkaasi ka dhashay israsaaseen oo labada dhinac ay heshiiska doonay inay gaaraan halkaasi ay ku kala tageen isla maalintaas waxaa weerar lagu soo qaaday deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidan ka socda maamulka deegaanka oo ka tirsan
kuwa dowladda federaalk Soomaaliya ayaana la sheegay in weerarkaas ay soo qaadeen lana ogeen cidda ay ku soo qaadayeen maadaama deegaanka xilligaas ay ku sugnaayeen shacab dhibaato xoogan soo maray sidoo kalena xilligan iyagana halkaas dhibaatooyin ku wajahaya waxaa halka ka dhacay israaseen kadib markii dadka deegaanka ay ka war heleen in ciidan uu ku soo wajahan yahay dhalinyaro halkaas ku sugnaad ayaana qoriga u qaadatay difaaca dadkii maatada ahaa ee halkaas ku sugnaa nasiib wanaag wax dhibaato ah oo halkaas ka dhashay ma aanay jirin maalintaas uu dagaalka dhacay kadib waxaa dib u laabtay ciidamadii dowladda ee weerarka soo qaaday wax dhibaato ah kama aysan dhalan halkaas dagaal ayaa ka dhacay ugu dambeynna dib ayaa laysaga laabtay oo wax dhibaato ah oo ka dhashay mar kale dagaalkaas ma jirin Muuri waxa ay noqotay goob dagaal oo u dhaxaysa dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka lambar konton oo iyagana la sheegay inay xilligaas ka amar qaadanayeen gudoomiyaha deegaanka dooda qaadashada $50,000 ee dollarka Mareykanka ah ee laga qaatay nabadoon Ibraahim Cali Nuurow waxa ay soo gaartay meel xun xilligan waxaa taagan xaalka halkaasi maalinnimadii shalay iyo saacadihii la soo dhaafayba waxaa warbaahinta si weyn u haystay muuqaalo siyaabooyin kala duwan loo kala turjumayay nabadoon Ibraahim Cali Nuurow waxa uu yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hadalkan ayuuna jeediyay lacagtii ani liga dhacayne qaariya ku cuneen isbaardi lacag ka qaataan kuwaas odayaal nabadoon sheegay nabadoon ma aha odayaal isbaarista tuuga ilaahi ummadda oo ummad dhibaata hayna kamid yihiin nabadoon waxa la ninkii dowladda ay ku tahay dhikaar leh waa odayaasha dhaqanka ee maamulka deegaanka lambar konton waa kuwa uu haysto isla shalay waxaa dhacay muuqaalo kale in lagu baahiyo baraha bulshada kuwaasi oo isugu jira nabadoono iyo odayaal sida uu sheegayo amaba ay sheegeen kana soo horjeedaan in dhul qabiil uu leeyahay hal shakhsi uu gato lana siiyo dad si gaar ah u raba dhulalkaasi inay gataan laakiin iyagana hadalladoodii maxaa ka mid ahaa nina wax gati xala intuu ku ascabiraayo adeera geeska jiro afar biimala ku soo xigto dir ahaw daaro tahaw nin meel joog xamar dhaxfido aanimi imisilo gudoomiyaha maxkamadda shuuti waxa uu sheegaa dadka maxkamadaas u baahan oo unuga caradayna inuu gato ay maarta cadcad u jarjartaan dadkaasa maxkamadaas u baahan xeer ilaaliya in ismaamulka soo waco waa ku qaldan yahay waa ama kara meesha deegaanka xeer u dhisan marka ay halkaasi taagan tahay waxaa jira dacwad ka dhan ah shakhsiyaad maamulka deegaanka lambar konton ka tirsan sida la sheegay iyo odayaal dhaqan oo lagu eedeeyay qaadashada $50,000 ee dollarka Mareykanka ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaana la filayaa in dhawaan ay u yeerto shakhsiyaadkaas la filayo in iyagana ay ka soo baxaan gudaha deegaanka xeer ilaaliya in ismaamulka soo waco waa ku qaldan yahay waa ama kara meesha deegaanka xeer u dhisan cidna ma saadaalin karto waxa ka dhici kara misna waxa dhaxmari kara beelahan halkaas isku haysta laakiin mar walba dadku waxa ay ku baaqayaan nabad Muurina waxa ay noqotay goob dagaal oo u dhaxaysa labada maamul ee Muuri iyo sidoo kale deegaanka lambar konton